kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan caruurey oo marka leeyahay barnaamijkeeni xiisa lahaa ee maawalada carruurta taasoo toddobaad walba aynu kusoo qaadana wax xiisa leh maanta carruurta soomaaliyeed maanta maxaan idiin wadaa carruurey maanta waxaan idiin wadaa faa'iidada ay leedahay wax wada qabsiga ama wada jirku taasoo aynu kusoo qaadan doono dhammaan sheekadeenna faa'iidada ay leedahay wada jirku haddaba carruurey aanu gudagalna sheekadeenne waxaa beri hore jiray koox xayawaana taasoo ku wada noolaayeen dhammaantood duurka ama kaynta laakiin dhammaantood nolosha way ku midaysnaayeen oo waxaa jiray wax wada qabsi iyo iskaashi dhinacooda oo kolba wixii la soo gudboonaa dhammaantood way iskaashan jireen waxna waa isla qabsan jireen laakiin sidooda arrinkooda ba ahaatee waxaa kala duwanaa dabeecadahooda iyo akhlaaqahooda tusaale ahaan waxaa jiray daanyeer aad u dhaqan xumaa iyo sidoo kale tuko isla kibir iyo isla weyni ka muuqato waxaa sidoo kale jiray deeradaasoo ahayd taa ugu dheeraysa xayawaanka duurka ku wada noolaa sidoo kale waxaa meesha joogay oo ku jiray xayawaanadaas diinkaasina wuxuu ahaa xayawaanka meesha ugu gaabiya ee jooga laakiin si kastaba ahaatee arrinkaas isaga oo jira waxa meesha ka marhnayn ama ha ka maqnayn iskaashi carruurey haddaba tuka oo ahaa isagu mid aan la mahadin oo ay ku jirto xaasinimo iyo qab iyo isla weynaan ayaa waxa uu samayn jiray marka uu cuntada soo qaato keligii ayaa isku filnaysiin jiray iskaba dhaaf inuu cid wax siiyee mararka qaar ayaa waxa uu dib u xadi jiray cuntooyinka ay soo qaataan xayawaanada duurka isaga kula nool arrintani waxay aad iyo aad u dhibtay xayawaankii ku noolaa duurka dabeecadahan qallafsan ee uu tuka leeyahay marna kuma raalli noqon waxaanuu wada tuke iyo sida wax u wado haddaba xayawaanadii waxaa isku yimaadeen shir si ay go'aan ugu qaataan waxa ay ka yeelayaan tuke haddaba xayawaanada waxaa ka mid ahaa dacawo oo ayadu mid aad iyo aad u caqli badan iyo maskax badan ahayd taasoo soo jeedisay in tuka faraha looga qaado oo ay cashar u dhigi doonto ama ay si fiican u eedbin doonto haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa sida caadadu ahayd tuke ayaa waxa uu kayntii la yimid rubuc amba kuus jiis ah taasoo uu ka soo qaatay magaalada jiisku carruurey waxa weeyaan waa burcad ama subag la fadhiisiyaa la dhahdaa jiiskii ayaa uu la yimid haddaba sidii caadada u ahayd marka uu jiiskii soo qaatay oo uu lugta la helay laantii ayaa uu iska bilowday cunistiisii jiiskii dabeedna isagoo cunaya ayaa ay dacawo waa tii khiyaamada badnaydee ayaa soo hos istaagtay tukihii haddaba way soo hos istaagtay geedkii waanay ku soo dhowaatay waxaanay ku tidhi tukihii maalin wacan saaxiibkayow waxaanaad cunaysaa tukihii ayaa ugu jawaabay waxaa la idhahdaa waxaanaan cunaya jiis ama burcad la fadhiisii taasoo bila'aadanka quri ay cunaan dacawadii ayaa mar kale la hadashay tukihii waxaanay ku tidhi saaxiibkayow ma ku dhadhamin karaya dabeedna intaa uu ku qoslay ayaa waxa uu ku yidhi sidee baad ku dhadhamin karaysaa si aan ku soo helay alluunbaa oge aad iyo aad bay ugu adkay dacawadii ayaa isku dayday inay wax fahansiiso waxaanay ku tidhi tukow meel ayaan ku wada noolnahay waxna waynu wada cunnaa laga yaaba maalin maalmaha ka mida inaan aniguba soo helo cunto sidanoo kale u macaan markaan wax kaa siiyo haddaan soo helo ee intaadan wax iga sii tuke oo marka horeba ku ogeyn bakhayl weliba isla qaweyn ayaa waxa uu la yaaba waxay dacawo ku tidhi dabeedna inta uu ku qoslay ayaa uu geedkii uga duulay geed kalena u duulay isagoo sita jiiskiisii raaya macaanaa dacawadii aynu ku ogeyn khiyaamada ayaa maanta waxaa u socon weyday arrintii ay la timid dabeedna waxaa isku dayday inay fikrad cusub la timaaddo oo ay isku daydo sidii maanta tuke afka ciidda u darlay siyaasad cusub ay u keenilay markii ay geedkii dambe kaga daba tagtay ayaa inta hoos istaagtay waxaa ku tidhi alla waan kugu ciyaarayey maanta dhan waxaan ujeedkaygu ahaa aan kuu daba socday tukow waxaan kugu ogaa inaad cod macaan tahay markaa waxaan u baahnaa maanta inaad hees fiican ii qaadid aniga dhab ahaantii xayawaanka ku nool duurka oo dhani waxay jecel yihiin codkaaga oo waa ay farxaan marka ay maqlaan codkaaga oo waxaad tahay fannaanka duurka nooguna codka macaan tukow dacawo ayaa ku tidhi marka ay xayawaanka o dhan isku yimaadaan codkaaga ayaa jeclaystaan tuke oo aad u qab weyn faan badanna ayaaba u haystay kan duurka ugu codka macaan leh uguna codka fiican dabeedna waxa uu si fiican isugu dayi doonaa inuu qanciyo dacawadii ka dalbatay inuu u heeso sidaynu arkayno marka uu heestiisa u bilaabay ayaa cuntadii afkiisii ka soo dhacday waxaanay ku dhacday afkii dacawadii
dabeedna heestii marka uu bilaabay heestiisaasoo ahayn mid aan aad loo jeclaysan, waayo khiyaamo ayuu mid dacwad u waday, heestiisna waxba ma ay tarayn, cod fiicanna maanu lahayn. Tuke oo weli u haysta in ay dacwadii heestiisii fiicneed dhegaysanayso ayaabaa uu afka la raacraacay, dacwadiina cuntadiisii mar hore ayaabay cuntayba. Dacawa ayaa la hadashay tukihii, waxaana ku tidhi cuntadii aad sidatay iyadoo iska socota afkayga ayaa igu soo dhacday. Dabadeedna tukihii oo yaaban ayaa ku yidhi, adigu inaan ku heeso maad doonayn, laakiin waxaad doonaysay inaad cuntadayda afka kala baxdid oo ay afkaaga ku dhacdo. Dacawo oo hadalkeedii sii wadata ayaa tukihii waxay u soo jeedisay una sheegtay, tukow ogow, duurkan waxa kugula nool xayawaano adiga kaa fiican, aadna ka fiicnaan karaysid, laakiin muhiimaddu amba ujeeddadu maaha inaad adigu isla qab weynaatid amba aad isla weynaatid. Sidaynu wada arkayno, tuke ayaa dareemay kelinimo, waxaana uu ogaaday inay xayawaan oo dhan u tashadeen isaga. Dabeedna dhaqankiisii hore ayaa uu wax ka beddelay, waxaanu iminka kadib go'aansaday inuu xayawaankii duurka kula noolaa keligii ugu soo beedho waxna la cuno. Intaasi kadib, tukihii waxa uu la qabsaday wax wada cunista iyo wax wada wadaaggu faa'iidooyinka ay leeyihiin. Dacwadiina saas ayaa ay ku soo xerogelisay amba ay ku soo edbisay tukihii kibirka iyo isla weynida badnaa. Hadal iyo dhammaan. Haddaba sheekadan waxaynu ka faa'iidnay muhiimadda ay leedahay wada qabsiga iyo isku tiirsanaanta la isku tiirsanaadaa. Waa inoo iyo kulanti dambe. Wassalaamu calaykum.